waxaa ka soo qayb galay xafladan 212 macallin baa maamulay ayaa loo qabtay oo ay ka kooban yihiin dugsiyada gobolka Sanaag iyo Baran ka kooban yihiin 164 maamule oo Sanaaga iyo 48 maamule oo gobolka Baran baa dhamaantood isku yimid Ceergaabo sababta la isugu yeedhay waxa weeye xoog dhaba inay ka bixiyaan dugsiyadooda oo la rabo sidii la idinku soo wargeliyay in qof waliba xogtiisa soo qaato arrintaas oo aynu ka shaqayn doono muddo 5 casho gudahooda ka bilaabo maanta waxaana la doonayaa inaan xogtaasu khaldamin xogtaas waxay noqonaysaa xog qaran oo Soomaaliland bay noqon doontaa hadday khaldanto iskuulkaagii baad khalatay waxaa la hayaa foomam badan baynu haynaa waxaa lagu buuxinayaa muddadaa 5 casho inta caqliga wanaagsan waxay ku dhamayn kartaa saacado way ku dhamayn kartaa waxaa la idinka rabaa in aynu arrintaa xog runa oo ka diyaar garaynana hadhowto information dhaba intaa waxaa raacda khaladaad baa dhacaa khaladaadka dhacaa waxa weeye dugsiyada magaalooyinka aan ku oolin waxaa jira dugsiyo inoo dhisnaa ama inoo shaqeynaya 15 sannadood weli cid ka soo baxdayna aanay jirin waxaan u qaadanaa gacan macnaheedu waxa weeye macallinka halkaa jooga ayaa intaa ku eg sidaynu ognahay anigu kolley 164 dugsi baan xukumaa 18 baa galay imtixaanada 18 dugsi baa galay imtixaanada oo eeladka gala waxa kale oo dhan ma soo saaraan waxba sanadka haddii alla yidhaahdo dee ardayda ka soo baxday sekondariyada bilaa camalkaa baynu ku bedelaynaa imtixaan baanu ka qaadaynaa macallimiinta imtixaan baa laga qaadayaa ciddii furin weyda imtixaankaa ka soo bixi weyda waanu dee ka saaranaa meesha qodobka labaada jira waxa weeye badanaa iskuullada miyigu way dumaan ama jiigadda ayaa dabayl ka qaata laba arrimood kontraktorka oo meesha miyigaa siduu doonaba dee iska yidhaahda oo iska miyilayna iyo innaga oo maamulihii oo aan shaqadiisa qaban oo ah laba arrimood dee maamulaha horta waxaa laga doonayaa dugsiga inuu ugu soo horreeyo waxaa haddana laga doonayaa inuu dugsiga ugu dambeeyo oo daaqadaha xidho albaabada xidho maamulihii baa ka horrara waxaya ardayda macallimiintuna oo iska dhaqaaqaysaa iskuulkii oo miyi ku yaallo daaqadihii albaabka furayin baaba hal dabaylana ula imanaysaa kontraktorkuna awalba waxbuu sii yidhi waa digada mar haddii ay isu gasho dabayl iyo dhismaxumo ay isu gasho waxaynu haynaa iminkaanu haynaa 12 iskuul oo jiingadii ay dibadda uga dhacday baynu haynaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada waxaan u mahadnaqayaa hay-adaha UNICEF iyo CARE si wanaagsan noola shaqeeya kolley anoo ku hadlaya afkii gobolka Sanaag